sheekadeena maanta. Gabadhan magaceeda waxaa la yiraahdaa Miraa. Subax walba markuu waagu baryo waxay madaxeeda ku soo qaadaa sanxi ay ka buuxaan qudrad, waxaana ku dhex wareejisaa tuuladan iyadoo markaa naadinaysa qudradda ay markaa iibinayso. Maalin maalmaha ka mid ah, Miraa oo dhex socota xaafadaha ka mid ah tuulada ayaa waxay aragtay beer yar oo aad u qurux badan isla markaana ay ka buuxaan qudrad fara badan. Miraa oo aad u jeclay beerta noocan oo kale inay mar u samaysato weligeedna ku soo riyoon jirtay ayaa waxay la yaabtay beertan. Laakiinse xaaladda maaliyadeed ee ay ku nooshahay Miraa oo aad u hooseysa ma aysan awoodi karin inay iibsato beerta noocaasa. Miraa waxay dhashay wiil yar isla markaana waa aabihii dhintay sanado badan ka hor. Iyada ayaa iminka mas'uuliyadiisa haysa, waxbarashadiisa iyo wax walbaba laga doonaya. Maalin maalmaha ka mid ah, iyadoo suuqii tuulada dhex wareegaysa oo naadinaysa qudraddii madaxeeda saarnayd ayaa waxaa ka hor timid gabadhaas yaqaanaan. Kadibna waa is salaamayn, mid walba midda kale xaaladeeda ayay wareysatay. Miraa gabadhii la taagneed ayaa waxay u sheegtay in beertii yareed ee ku taalay tuulada isla markaana ninka odayga u lahaa in ay iib tahay iminka uu doonayo qofka iibsada. Miraa ayaa arrintii aad ugu faraxday runtii. Intaa kadib Miraa waxay soo qabatay dhinacii odaygii beerta lahaa isla markaana waa is salaantay, wayna saxal wareystay. Waxayna ku tiri, waxaad qorsheynaysaa inaad beertaada iska iibiso? Waxaanu ku yiri, haa, waan gaboobay xilligan, intaan ka badan beerta kama shaqayn karayo, waxaan doonayaa qof iga iibsada. Iyadii ayaa waxay ku tiri, waan iibsanayaa beertaada. Odaygii yaraa oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ku yiri, haddii aad jeceshahay beertayda waad iibsan karaysaa. Miraa ayaa waxay weydiisay qiimaha beerta odaygii yaraa. Odaygii yaraa ayaa waxa uu ku yiri, beertayda waxaan ku doonayaa 500 oo shilin. Miraa ayaa waxay tiri, anigu waxaan haystaa oo keliya 200 oo keliya. Odaygii wuxuu yiri, 200 aad ayay u yar tahay. Odaygii wuxuu yiri, 400 oo shilin wax ka yar kaama reebi karo lacagta. Miraa waxay tiri, ka waran iminka haddii aan ku siiyo 200 oo shilin. Miraa ayaa hadalka sii wadata, waxayna tiri, waxaan ku siinayaa bil walbaba 50 shilin haddii aad isku waafaqnay. Odaygiina waa uu ku waafaqay oo waxa ku yiri, bil walba waxaad ii keenaysaa 50 shilin, sidaas ayayna kaaga dhamaanaysaa. Miraa markaan waxa uu hirgashay riyadeedii ay sanado fara badan ku soo riyoonaysay oo ahayd inay mar uun beertaan hantido. Miraa waxay bilowday inay qudraddeedii ay suuqa ku iibin jirtay si laabto isla markaana lacag fara badan oo faa'iido ay hesho. Miraa subax walba waxay bilaabi jirtay shaqadeeda iyadoo hore u sii wadata ganacsigeedii. Bil kadib Miraa waxay keentay 50 shilin oo laga rabay, isla markaana odayga ay ku balameen bil walba inay keento lacagtaas. Miraa maalin kasta waxay u shaqayn jirtay si adag iyadoo macaamiisheeda ugu geyn jirtay guryahooda qudradda ay doonayaan. dhowr bilood kadib markii ay lacag fara badan soo bixisay bishii u dambeysay, Miraa way dhamaysay lacagtii laga doonayay. Odaygii yaraana waa u mahad celiyay, waxaanu ku yiri, waad hantiday iminka beertii, adigana iskale saacadan laga bilaabo, riyadaadina waad gaadhay. Miraa subax walba beerteedii ayay soo kormeeri jirtay, waana ka shaqayn jirtay. Beerta dhexdeedana waa lagu iibsan jirtay qudradda ay soo saarto, waxayna u shaqayn jirtay si adag. Nolosheedina way wanaajisay. Wiilkeedii yaraana waxbarashadii ayay ka bixisay oo iskuul wanaagsan oo qaali ayay ku dartay. Nolosheedina way qurux badnaatay. Sheekadana waxay ku saabsan tahay qofkii dadaalkiisa waa u helaa.